guud ahaan goob kastoo ay joogaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siino wixii maantay ka dhacay magaalada Muqdisho oo ahaa wax boorisku qaris ah oo kooxihii nabadiidka ay doonayaan in ammaanka iyo xasiloonida ka jirta gobolka Banaadir ay ku fashiliyaan laakiin ay ahayd wax ay ka naxeen waxa abaaro laga bilaabo 7 saac iyo 40 daqiiqo ilaa iyo laga gaaro 8 saac la weeraray ama bangacmooyin lagu tuuray ilaa iyo 7 saldhig ama 6 degmo gobolka Banaadir ka tirsan kuwaas oo lagu weeraray bangacmooyin balse goob fog oo laga soo tuuray awgeed aan bagaarin halkii loogu talagalay waxaana gacanta lagu soo dhigay ilaa 5 dhagar qabe oo weli wata bambooyinkii ay tuureen kuwii ka soo haray waxaana gacanta ku haya ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaana la waafajin doonaa waajibaadka qaranka uu ka lahaa in cid walba ee ka hortimaada nabadda qaranka la waafajiyo shuruucda u degsan qarankan waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bushaareeyo inay ku kalsooni qabaan ciidankooda booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliiska qaybta guud oo foojignaan dheeri ah ka muujiyay ragga dhagar qabiyaasha ahaa ee isku dayay inay gobolka Banaadir saldhigyadooda ku soo weeraraan bambooyinkii balse ay ku hingooween waxa ku dhaawacmay bambooyinkaas ay ku tuureen 6 degmo 4 qof oo rayd ah oo u badan caruur waliba 3 kamid ah ay yihiin caruur aad u da'yar ay da'dooda u dhaxay 13 jir ilaa 10 jir ummadda Soomaaliyeed wixii aan tusaynay qayb kamid ah waa inay arkaan waxa loo socdaa inaysan ahayn askari booliis Soomaaliyeed ama military ah mise dawlad u shaqeeya ee waxa loo socdo ay tahay nabadda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed iyo in la baneysto dhiigga ummadda taasna waxa hari habeen u taagan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo u dhaartay inay difaacaan bulshadoodii hari habeen dhedada iyo dhaxantana u taagan sidii looga nabadgelin lahaa kooxaas nabadiidka caadaystay baneystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed haddaba cid walba oo ka tirsan nabadiidka waxaan u sheegaynaa waana kula joognaa waana ku jeednaa waana ku qaban doonaa insha Allah waana mahadsantiin